golaha deegaanka degmada Laascaanood ayaa soo xidhmay maanta kalfadhigaasi oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa lagu ansixiyay 20 mashruuc oo dowladda hoose degmada Laascaanood ka hirgelinayso degmada Laascaanood sanadkan cusub ee 2022 iyadoona dowladda hoose degmada Laascaanood iyo golaha deegaanka ee cusubi horumar iyo waxqabad la taaban karo ka hirgeliyeen intii ay joogeen xafiiska kalfadhigaasi oo shir gudoominayay maayarka degmada Laascaanood ahna gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa noqday mid ay ka soo baxeen qorshayaal waaweyn oo ay aad ugu baahnaayeen bulshada degmada Laascaanood waxaana kalfadhigaasi oo ay goobjoog ahaayeen maayar ku-xigeenka degmada iyo xildhibaanada golaha deegaanka qodobadii ka soo baxay soo bandhigay maayarka degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil isagoona bulshada ugu baaqay inay bixiyaan cashuurta kana qayb qaataan horumarka asi habsamiyo noogu soo xidhmay kalfadhigii afaraad ee golaha deegaanka degmada Laascaanood oo noo furmay maalintii ahayd khamiista maanta waxaadna noo soo xidhmay bishuna tahay 23 wuxuu noo socday 3 casho aanu isla qaadanay aanu ku ansixinay 20 mashruuc oo waxtar weyn iyo faa'iido weyn u leh bulshada ku dhaqan degmada Laascaanood oo aan saxaafadana la wadaagi doono waxaanu go'aansanay oo cod aqlabiyad la ku ansixinay 20 ka mashruuc inaanu ka fulino sanadka 2022 degmada Laascaanood waxa ugu horeeya ballaarinta iyo dib u habaynta laamiga weyn oo aan dhowr jeer horena sheegnay ee dhexmaray magaalada dhamaystirka master balaynka dhamaystirka diiwaangelinta xaafadaha iibinta macdaadka iyo gaadiid ay yeelato dowladda hoose furista wadooyinka xidhan tayaynta waaxyaha iyo shaqaalaha dowladda hoose dhismaha suuqa qudaarta cagaarinta iyo bilicda magaalada hirgelinta calaamadaha xaafadaha kowaan lagu qala geela oo ay yeelato magaaladu iyadoo hadeerto dooxa dhexdiisa lagu qala geela biriishka farxaskulle xaafadda farxaskulle ama New Laascaanood soo celinta hantida dowladda annagoo kaashanayna wasaaradda hawlaha guud iyo dowladda dhexaba rug boolis oo loo sameeyo xaafadda Toocil samaynta xafiisyada xaafadaha ee cashuuraha ilaalinta iyo nashqadaynta xabaalaha samaynta sariibada xaafadaha soolarada dib u hagaajinta iyo soo kordhinta soolarada magaalada wadadan maxkamadda iyo u dhaxaysa dowladda hoose ee ka soo degaysa laamiga weyn oo aanu iyadana aanu saarno wada laamiya intaas sida ay u muuqato quruxda iyo bilicda xafiisyadu mashruuca GS-ka oo aanu dhammaan dhulka bannaan iyo guryaha magaalada waanu samayno database samaynta saylada xoolaha oo iyadana baahi weyn aanu qabno waxaanu go'aaminay oo maanta aanu ansixinay haddaanu nahay golaha deegaanka degmada Laascaanood inaanu 20 ka mashruuc ka fulino sanadka 2022 degmada Laascaanood haddii aan leedno inaad cashuurta bixisaan waxaanu idinka codsanaynaa inaad contribution ka bixisaan waxaanu idinka codsanaynaa inaad nala shaqaysaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadcelinayaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood oo gartay waajibaadkii loo doortay oo gartay mas'uuliyadda ay hayaan maayar ku-xigeenka degmada Laascaanood Axmed Kowte iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa ka hadlay xidhitaankii kalfadhigaasi bulshadana fariin u diray tanka mashruuc mid kastaaba wuxuu u baahan yahay dhaqaalo ka ugu yar baa waxa ku baxaysa lacag gaaraysa 100,000 qaarkood waxa ku baxaysa lacag u dhiganta $1 milyan oo bulshada reer Laascaanood waxaan uga baahanahay isgarab taag dhab ah oo aan ahayn hadal ahayn laakiin ficil ah haddii guri kasta oo reer Laascaanood ah ama magaalada dadka degan ah ama qurbo joogta ah qof kastaaba hadduu iska xil saaro waxa yar jeebkiisa uu ka soo bixiyo waxay qurxisaa Laascaanood si ay 20 ka mashruuc furaan waxaan shacabka degmada Laascaanood aad uga codsanaynaa inay nala shaqeeyaan waxa jeebkooda ku jirana soo saaraan in badan ayaa lagu soo celceliyay magaalada Laascaanood horumar bay u baahan tahay si horumarkaas loo gaaro waxa horumarka gaarsiin kara degmada waxa weeyaan waa shacabka magaalada iyagoo cashuurta bixiya dakhli dheeraadana ku dara waxyaalaha bulshada Laascaanood hadaba u baaqayna guud ahaan hadaan nahay golaha deegaanka inay mashaariicdan ka qayb qaataan kuwa cashuur diidka
talada dib loogu celiyo lala taliyo la yidhahdo cashuurta bixiya marka waxaanu leenahay bulshada waxaan u diranaa waxaanu leenahay annagu waxqabad diyaar baanu nahay inaanu wax idiin qabanno inaanu mar kasta ina garab taagnaano wax kasta aad gacanteeda soo gala cashuur hadday tahay iyo wax dheeraada hadday tahay iyo wax dowladda naga soo gaadhaba inaanu sidiina idinku celinno. golaha deegaanka cusub ee degmada Laascaanood ee uu hogaaminayo maayirka degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa ah kuwo Laascaanood u hayaamiyay dhabadii horumarka iyo waxqabadka